لغة البيان ومنطق القرآن، وفرادة فيها وسحر لساني يا درة. عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وشكر محمد، waxaan ahay ardayad wax ka barata Machad Ibn Malik. halka waxaa ka salaamaya macalinkeyga macalin Cabdikariin iyo groupkeyga group B. halka maanta waxaa ku aqrinayaa baabul i'raab cashir kamid ah gaar ahaan taqdiirta. munaasaba waxaa la dhahaa kelimada in loo adiifiyo ya al-mutakallim. haddii loo adiifiyana shaqal ma muuqan karo. sababtuus u muuqan karina waxaa waaye kasro ee ya-du wadata ayay kelimada aakhirkeeda saaranaysaa. munaasabadu waxa ay gashaa isimka waxayna ka gashaa saddex xaalo: fi xaalati rafci godaalka xaaladiisa, fi xaalati nasbi kordhiga xaaladiisa, fi xaalati jarri hoos dhiga xaaladiisa. tusaale: jaa qulaami, waxaa imaaday adoonkeyga. waxaan sheegaynaa tusaalaha inta kelimo uu ka kooban yahay. jaa waa kelimo, qulaami waa kelimo iyo al-mutakallimku waa kelimo. wuxuu ka kooban yahay saddex kelimo. waxaa sheegaynaa kelimo walba nuucay tahay. jaa waa ficil, qulaami waa isim, ya al-mutakallimku waa isim. jaa waa ficil maadi waa mabni, qulaami waa isim mufrada waa mucrab, ya al-mutakallimkuna waa damiir waa mabni. jaa ficil maadi mabni على الفتح لا محل له من الإعراب. qulaami فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. qulaami مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. tusaalaha labaad: ra'aytu qulaami, waxaan arkay adoonkeyga. waxaa sheegaynaa tusaalaha inta kelimo uu ka kooban yahay. ra'aa waa kelimo, ta'da waa kelimo, qulaami waa kelimo iyo al-mutakallimkuna waa kelimo. kelimo walba nuuceeda ayaa sheegaynaa. ra'aa waa ficil, ta'da waa isim, qulaami waa isim iyo al-mutakallimkuna waa isim. ra'aa waa ficil maadi waa mabni, ta'da waa isim waa mabni, qulaami waa isim mufrada waa mucrab, ya al-mutakallimkuna waa damiir waa mabni. ra'aytu ficlun waa faacilun, qulaami mafcuul bihi mansuubun وعلامة نسبه فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. qulaami مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. tusaalaha saddexaad: marartu biqulaami, waxaa soo maray adoonkeyga. waxaa sheegaynaa tusaalaha inta kelimo uu ka kooban yahay. marar waa kelimo, ta'da waa kelimo, ba'da waa kelimo, qulaami waa kelimo iyo al-mutakallimku waa kelimo. wuxuu ka kooban yahay 5 kelimo. waxaa sheegaynaa kelimo walba nuuceeda. marar waa ficil, ta'da waa isim, ba'da waa xaraf, qulaami waa isim iyo al-mutakallimkuna waa isim. marar waa ficil maadi waa mabni, ta'da waa isim waa mabni, ba'da waa xarf waa mabni, qulaami waa isim mufrada mucraba, ya al-mutakallimkuna waa damiir waana mabni. marartu biqulaami, marartu ficlun wa faacilun, biqulaami al-baa xarfu jarrin, qulaami اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. qulaami مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. الجار والمجرور متعلق بمرض. لغة البيان ومنطق القرآن، وفرادة فيها وسحر لساني يا درة بين اللغات مصونة أبدا، وذا وعد من